madaxweyne muqdishaha caayin waa dhambaal gaar uu soo qoray agaasimihii hore ee waaxda warfaafinta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya kol horena shaqada laga ceeriyay Cabduqaadir Cali Dige qoraalkiisa waxa uu ku bilaabay Muqdisho ay ka dhaceyso doorasho dhab ah bal qiyaas nooc ay ahaan lahayd iyo jawiga ay ku jiri lahayd isu soo baxyo siyaasadeed oo ay dhigayaan ururada siyaasadda iyo abaabul ay ku soo saarayaan taageerayaashooda si isku diiwaan galiyaan calamada iyo midabada matalaya xisbiyada oo ay taageerayaashu ku labisan yihiin ayaa bilicda magaalada iyo dabiga iyo waliba jawiga doorashada bili lahayd looma baahdeen in dawladda ay xifaaltan qabiil maciisato si ay xiiso ugu yeesho diiwaan gelinta doorashada balse waxay ku bartami lahaayeen ururada siyaasadda iyo taageerayaashooda soo saari lahaa iyagoo albaab walba u garaaci lahaa xaafadna u beegsan lahaa degmooyinka ay ku tuhumiyaan taageerayaashooda guusha doorashada saldhigna waxay u noqon lahayd diiwaan gelinta codbixiyaha si ay degmooyinka ugu kala bataan doorasho quruxdaas leh ayay Muqdisho u qalantaa 3 milyan ee caasimadda ku nool iyadoo heli karto inay ka qayb noqdaan maxaa ku kalifay dawladda inay TikToker 3 degmo ka diiwaan geliso ayso kuma aha doorashada iyo caasimadaba horaa loogu ceeboobay duqa magaalada Amiir oo 3 jeer is diiwaan geliyay xisbul xaakimka tusaalaha dimuqraadiyadda ha noqdo maayarka Muqdisho wali ma abgaal buu u xiran yahay mise qof kasta ee buuxiye shuruudaha ayaa tartami doona ayuu calaamad su'aal duldhigay qoraha sharciga cusub ee doorashada la isku raacsana waxa uu dhigayaa soo gudbinta liiska musharaxiinta iyo in ururo siyaasadeed oo kasta ay u madax banaan yihiin taas oo ka dhigan xilligan inuusan jirin tartan gudaha xisbiga ah haddaba si dooqa hoggaanka xisbiga loogu shaqeeyo sooma habboon in tusaalaha dimuqraadiyadda uu noqdo madaxweynaha isla markaana musharaxiinta ka imaanayaan xisbigiisa ay maraan doorasho hordhac ah taas oo lagu magacaabo primary halka si toos ah loogu magacaabi lahaa qof ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa Cabduqaadir Cali Dige